kuruluşlarla hem de özel şirketleriyle Somali halkına yardım uzatmaya çalışıyor. sida aad la socotaan dowladda Turkiga ha ahaadan hay'adaha dowladda ama hay'adaha NGOs-ka ama ha ahaadan hay'adaha private-ka waxay ku howlanayaan ama ay ku guda jireen gargaarka ama kaalmada ay kaalmaynayaan ummadda Soomaaliyeed. Ramazan dolayısıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu Somali'ye gelerek Somali halkına yardım uzattı. intii lagu guda jiray bisha Ramadaan waxaa Soomaaliya yimid oo gargaar soo gaarsiiyey hay'ado badan oo Turkiya. Son olarak Türk Kızılayı tarafından 13.000 ton gıda malzemesi Mogadishu limanına getirildi. Şu anda depolarda. Waxaa ugu dambeeyay markab gargaar oo waday 10 kun oo tan oo ay keentay hay'adda bisha cas ee Turkiga. Gargaarkaas hadda waxaa la geeyay ama wuxuu ku jiraa bakhaarada. Bütün amacımız Somali halkının yaşamakta olduğu acılara yardımcı olmak, onların acılarının dinmesine yardımcı olmak. Muhiimadeennu waxay tahay in shacabka Soomaalida ee dhibaatada haysata laga khafiifiyo ama looga gargaaro dhibaatada haysata. Bundan dolayı Somalili din kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılara ve yaralarına bir nebze merhem olabilmek için şu anda 40 adet 40'lık konteyner içinde 25 kilogramlık 40.400 adet yardım kolisini getirmiş bulunmaktayız. Ka shirkada Al Bayrak ahaan iyo hay'adda Al Bayrak ahaan si aan gargaar u soo gaarsiino dadka u baahan dadka Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka inaan si aan gargaar u soo gaarsiino waxaan keenay 40 konteyner gargaar ka kooban 40 konteyner. Al Bayrak firması olarak kamplarda bulunan Somalili kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için her gün 10.000 adet ekmek dağıtmaktayız. Shirkadka Al Bayrak ahaan maalin walba waxaan 10.000 adet. maalin walba waxaan 10 kun oo rootiya u qaybinaa dadka barakacayaasha. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar dahilinde ilaç yardımında bulunmaktayız. Sidoo kale waxaan siinaa gargaar daawo. Al Bayrak olarak bu ve buna benzer yardımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Ka Al Bayrak ahaan sida maanta aan u keenay gargaarkan hadda wixii ka dambeeyana waa sii wadaynaa in aan gargaarno walaalahayna Soomaaliyeed. Allah Somali din kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ilaahay u gargaaro dadka walaalahayna Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Waa mahadsantihiin. Ambassadorku halkan nagala joogo deeq raashina oo ahayd maalin dhaweyto markab noo yimi markabkii oo degayay muddo hadda 10 cisho ah maantana waxaan ku sugannahay hoolka Gateway ee dekedda Muqdisho halkaas oo lagu dejiyay markabkii sidaad arkaysaan maalintii hore waxay ahayd markab badda taagan haddana insha Allah waxaad hornihiina ku arkaysaan badeecadii oo halkan taal waxaan u mahad celinayaa dowladda Turkiga iyo hay'adda bisha cas ee deeqdan la soo gaarsiiyay waxaan leenahay walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazaakumullahu khayr. marka xigta insha Allah waxaan rajaynaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo hormuudka ka yihiin oo ah xukuumadda shacabka dowladda shacabka oo ay matalayaan shacabka annaguna aanu shaqaynayno u khidmaynayno inaanu gaarsiino shacabka u baahan iyadoo loogu talagalay meelaha loo asteeyay ay gaari doonaan sida ugu dhaqsaha badan sidoo safiirku idin sheegay wada shaqayn xoog leh ayaa naga dhaxaysa walaalaheena Turkiga waxaan ka rajaynaynaa deeqda inaysan noqon midii koowaad ee kuwa kalena ay keenaan inaan sida annaguna aan u ballan qaadnay inaan u gaarsiino ummadda tawaalaysan ee abaarta iyo gaajadu saameysay insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ummadda raxmad inoo shubo oo ummadda ina ka dulqaado abaarta roobabku waa deyn meel yar bay ka deyn laakiin insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu raxmad khayr qabto inoo shubo
mar walbana waan u mahadcelinaynaa walaalaheen Turkiga waa dowladda kaliya oo hadda sida muuqata wax la taaban karo intii hadda aan joognay ka wasaarad ahaan noo keentay naguna wareejisay si aan u gaarsiino wasaaradda annagoo qaadanayna roolkii aan ka lahayn wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxaan leeyahay walaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin jasaakumullahu khayr waa ka gidoonnay iyadii oo waxay tahay muuqaalkeeda aad u jeedaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha Allah waa idinka rajaynaynaa midaas iyo mid ka badan